Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan waxaan ku tusiinayaa qaabka ugu fudud oo iskaga ilaalin kartid ama iskaga xiri kartid spam calls ama tuugada dadka soo wacaan. Qaabka iskaga xiri kartid aan halkan kugu tusiinayaa. Qof walba oo laga shaki waa laga xirayaa, kuma soo wici kara. Hadduu ku soo wacana calaamad ayaa lagu saarayaa. Adiga kala doorani waa iska xiri kartaa. Haddii kale waxaad dhihi kartaa spam call hadduu soo waca ii sheeg inuu spam yahay. Marka calaamaday ku tusinayaan oo red ah, marka waxa lagu leeyahay qofkan spam aan u shakin. Marka telefoonka ma qabanaysa, hadduu message ku soo dirno message-kiisa waa iska dhigaraynaysaa. Laakiin waa lagu sheegayaa spam waaye lagu leeyahay. Marka halkan waxaad tegaysaa meesha call-ka ka tagtid. Hadda Android isticmaalayso okay, hadda iPhone isticmaalayso ku tijaabi, ma sheegi karaan kuma fiirin wali. Marka iPhone laakiin ku tijaabi. Android isticmaalaysa halkan saddexdan dood ay ku dhufanaysaa kor ah, settings ku sii dhufanaysaa. Marka halkan waxaad tegaysaa meeshan caller ID ay ku qoran tahay halkan calaamadan. Marka ku dhufatid halkan uu ku keenayaa. Ana sa arkaysan hadda hal meel ayaa on ah. Sida arkaysan maahan marka calaamadan see caller and spam ID identify business and spam numbers. Marka maahan wuxuu kugu tusinayaa qofkii spam loo shakiyo markuu ku soo waca calaamad red ah dhinac ka fuulaysa. Calaamadaas red oo tusinaysa qofkan qof aan ugu shakina lagu leeyahay spam, marka iska jira lagu leeyahay markuu ku soo waca. Ama hadduu message ku soo diray meesha laga tusinayaa calaamad red ah fuulaysa oo spam loo shakiyo lagu leeyahay. Message-kiisa markuu majurayo qaybta message-ka uu ku soo dhacayaa waa arkaysa. Marka fiiriso hore laga sii bixinaya telefoonka saa iska bixinaya wixii spam ah. Hadda tani oo na dhahdidna kuma soo wici kara qofkii spam looga shakiyo, waxaa la saarayaa busy. Markuu ku soo waco busy la leeyahay. Marka laakiin inaad saan yeeshaa fiican waayo wax laga yaabaa midoo kale uu soo biyaa jirta. Maanta anada blog saartid oo lambarkayga delete garaysid, mar dambe ay kugu soo dhacdo oo lambarkayga blog ka qaadid, laakiin lambarka ku save garaysaneen lambarkayga markaan ku soo waco lagu leeyahay spam waa ninkan lagu leeyahay. Waayo qofkii aad delete garaysay mise blog saartay oo lambarkiisana aad delete garaysay, hadda blog ka qaadid uu ku soo waca waxaa lagu saarayaa inuu spam ka mid yahay. saas darteed marka calaamadan off iska dhaysaa halkan bisa ku furnaani. Tan oo macnaheedu ay tahay qofkii spam ah buu ku sheegayaan qofkan waan ka shakina lagu leeyahay spam loo report garay. Marka sidaas marka waa iskaga ilaalin kartaa. Message ku soo diray waa iska sii delete garaynaa, aswaab iska delete garaynaya. Markuu ku soo wacana uu ku sheegayaa calaamad red ah fuulaysa. Inshallah iga faa'iideynan jeclahay. Channel-ka subscribe noo saara, gambalelkana furta. Marka khayr ayaan rajeynaya inshallah.